waa barnaamijkeennii aan ku wadaagi jirnay xogaha dalalka caalamka waxaana markaan soo qaadan doonaa dalal dhowr ah. dalka Philippines ee dhaca koonfurta bari ee qaaradda Asia waa dalka soo saara kalkaalisooyinka ugu badan ee ku kala shaqo taga caalamka. qiyaastii rubuc ka mid ah kalkaalisooyinka dalalka kale u shaqo taga waxay ka soo jeedaan Philippines, waxayna inta badan u shaqo tagaan sida Mareykanka, Ingiriiska, Australia iyo Bariga Dhexe. dalka Colombia ee koonfur Amerika dhaca waxaa laga helaa wabi midabyo badan leh, waxaana lagu naanaysaa dareeraha qaansarobaadka. dhowr midab ayuu yeeshaa kolka ay dhirtiisu habka taranka sameynayso. dalka Uganda waa dhulkii shimbiraha, waxaana laga helaa in ka badan 1,000 nooc oo shimbiraha ah, wuxuuna ku faanaa in laga helo 12% oo noocyada shimbiraha ee caalamka. dalka Portugal waxaa dhacda tuulo kalluumaysi oo lagu magacaabo Nazare, waxaana lagu arkaa oo ay caan ku tahay mawjadaha bad ee la dul fuuli kara ee ugu weyn caalamka, waxaana mararka qaar suurtagal ah in la arko mawjado joogoodu gaarayo ilaa 100 feet. magaalooyin badan oo dunida ah oo waxaa jiraan aan laga helin mashiinka caadiga ah ee ATM-ka ee lacagaha lagala baxo, laakiin dalka Imaaraadka gaar ahaan magaalooyinka Dubai iyo Abu Dhabi xitaa waxaa laga heli karaa ATM aad kala bixi karto dahab. dalka Qatar waa dalka kaliya ee caalamka ee leh wadooyin laami ah oo midabkoodu yahay buluug. sababta midabka buluugga loo mariyay wadooyinka qaar ee dalkana waa in la yareeyo heerkulka badan. magaalada Chefchaouen ee dhacda waqooyiga galbeed ee dalka Morocco waxay caan ku tahay guryaheeda halka midab leh, waxaana dhismayaasha magaaladan lagu xardhay midabka buluugga. sidoo kale Morocco waxaa laga helaa magaalo gaduudan oo lagu magacaabo Marrakesh. waa magaalo qadiim ah oo dhismayaasheedu midab ahaan loo ekeysiyay dhulka ku xeeran. dalka Oman waxaa laga helaa suuq dumarka oo kaliya loo ogol yahay. mid ka mid ah magaalooyinka ugu qadiimsan dalkan ee lagu magacaabo Ibra waxaa laga helaa suuq la isugu yimaado maalin walba oo Arbaca ah, maalintaasina raggu waa ka mamnuuc inay suuqan yimaadaan. dalka Mongolia ee dhaca bariga Asia cabitaanka qaran ee sida weyn looga jecel yahay waxaa lagu magacaabaa Ayrak, waana caano faras laga soo liso. caanaha fardaha ayay jecel yihiin oo weliba dhowr maalmood la qamiiriyay, waxayna ku daraan xoogaa qamriga. dowladda dalka Mongolia waxay si free ah ama bilaash ah dadkeeda ku siisaa dhul gaaraya 7 hektar. qoys walba ayaa arrinkan xaq u leh, laakiin in ka yar 10% oo dadka dalkan ah ayaa daneeyaan arrinkan. ku dhawaad kala bar oo dadka dalkan ah waxay ku nool yihiin caasimadda dalka ee lagu magacaabo Ulaanbaatar. inta kale ee dhulka dalkan ah waa mid intiisa badan cidla ah oo ay dadku ku nooleen, waxaana dalkan lagu tilmaamaa dalka ugu cufnaanta yar caalamka. dalka Estonia ee ka tirsanaan jiray midowgii Soviet isla markaana dhaca waqooyiga Yurub wuxuu leeyahay dowladda ugu horumarsan caalamka dhanka dhijitaalka. muwaadiniinta dalkana adeegyada dowladeed waxay ku heli karaan hab online ah sida canshuur bixinta iyo cod dhiibashada. dalka Netherlands waxaa laga helaa in ka badan 600 oo bridge ama buundo oo deegaanka la saaxiiba, waana kuwa loogu talagalay inay adeegsadaan xayawaanada duurjoogta ah. dalka Switzerland waxaa ka jira xisbi lagu magacaabo Anti-PowerPoint Party. waa xisbi ku ololeeya inuu mamnuucayo adeegsiga PowerPoint-ga. ajandihiisuba waa inaan PowerPoint loo adeegsan presentationska. 2015 ayuu ka qayb galay doorashada, in ka badan 4,000 oo qof ayaana u codaysay. dalka Indonesia ee ah dalka ugu muslimiinta badan caalamka waxaa laga helaa harada volcano ee ugu weyn caalamka, sidoo kale waa harada ugu weyn harooyinka laga helo Indonesia. waxa kale ee dalkan laga helo waxaa ka mid ah ubaxa ugu weyn caalamka. dhanka kale Indonesia waa dalka laga helo tirada ugu badan ee noocyada xayawaanada naasleyda, waxaana laga helaa ku dhawaad 800 oo nooc oo naasley ah. dalka Japan waxaa ka dhisan shirkad lagu magacaabo Ikimiso Danshi. waa shirkad kireysa wiilal loogu talagalay inuu ijaarto qofkii doonaya inuu film daawado kadibna daneynaya qof ilinta ka tira haddii uu filmka ku qiiroodo. waa wiilal loogu talagalay inay dadka film la daawadaan kadibna ay ilinta ka tiraan. dalka Sacuudiga dhul ahaan waa mid saxare ah oo qalalan, wax wabina aan lahayn, laakiin dadku arrinka aysan wada ogeyn waa in Sacuudiga laga helo goob lagu magacaabo Jazaan ama Albaaha oo ah meel ka mid ah meelaha ugu cagaaran mandiqada. midda kale ee xusidna mudanna waa in dalka mararka qaar uu ka da'o baraf, gaar ahaan dhanka waqooyiga galbeed ee buuraleyda ah. dalka Kiribati waa dalka kaliya ee caalamka ee dhaca
afarta kala bar ee dhulka. waa dal ka kooban jasiirado ku kala baahsan badweynta Pacific. dalka Armenia ee dhaca koonfurta Caucasus ama xadka Asia iyo Yurub waa dalka kaliya ee caalamka ee ardayda iskuulka waajib ku tahay inay maado ahaan u qaataan ciyaarta chess-ka. ciyaartan waa mid ka mid ah maadooyinka ay waajibka ku tahay inay qaataan ardayda dalkan. ujeedkuna waa in fikirka maskaxdooda kor loo qaado. marka dalka waqooyiga Kuuriya la joogo, qof maalinta dhalashadiisa u dabaaldegi karo ma jiro marka ay maalintaasi ku beegan tahay 8 July ama 17 December. waxaana maalmahan geeriyoodeen Kim Il Sung oo ah aasaasaha Kuuriyada Waqooyi iyo Kim Jong Il oo ah hogaamiye soo maray Kuuriyada Waqooyi. Kim Jong Un ma ogola in la dabaaldego maalinta uu awowgiisa geeriyooday iyo maalinta uu aabihiis dhintay. dalka India waa mid ka soo saara xaddiga caano ee ugu badan, wuxuuna dalkan soo saaraa ilaa 22% oo caanaha caalamka ah. dalalka ku soo xigana waxaa ka mid ah Mareykanka, Pakistan, Shiinaha iyo Brazil. waxaa la tilmaamaa masaaridii hore inay yihiin kuwii ugu horeeyay ee adeegsada kalendar ka kooban 365 maalin oo loo qeybiyay 12 bilood. dhanka kalena dalka Ciraaq waa mid ka haysta nidaamka qoraal ee ugu qadiimsan caalamka, wuxuuna taariikh ahaan u laabanayaa 3400 sano ka hor miilaadiga. calanka dalka Nepal waa mid ka duwan calamada caalamka, waana dalka kaliya ee caalamka ee calankiisu aan ahayn afar geesood. Slovenia oo ah dal dhaca bartamaha Yurub, dadkiisu waa kuwa si weyn u daneeya shinnida, waana dhaqan soo jireen ah inay dadka dalkan ku dadaalaan soo saaridda malab tayo sare leh. 2 milyan ee ruux ee dalkan ku noolna 90,000 oo ka mid ah ayaa shinnida xanaaneeyaan, taasoo ka dhigan 20 qof ee dalkan u dhalatay qof ka mid ah inuu yahay shinni xanaaneeye. waxaad in badan maqasheen dal hebel xilligaas ayuu madax banaanidiisa helay, laakiin dalka Singapore waa dalka kaliya ee caalamka ee lagu qasbay inuu noqdo dal madax banaan. wuxuu ka tirsanaan jiray Malaysia, kadibna Malaysia waxay u aragtay jasiirad aan waxba soo kordhinin, sidaas daraadeedna aan u qalmin inay ka mid ahaato Malaysia. Singapore oo doonaysa inay Malaysia ka mid ahaato ayaa lagu yiri gudooni ma inay noqdo dal madax banaan.